runtii maanta sharaf weyn bay noo ahayd in magaalada Nairobi laba wafdi oo ka kala socda labada dawladood ee Soomaaliya iyo Kenya ay maalmihii la soo dhaafay oo dhan halkan ku lahaayeen wada hadal shirkii saddexaad ee wadajirka iskaashiga labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya. wafdiga Soomaaliya runtii waxa ugu weyn ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta soo gaaray على شرفه lagu saxiixay arintan iyo wafdiga Kenya oo wasiirada ay joogeen wasiirka arrimaha dibadda wasiirka gaashaandhigga wasiirka ganacsiga wasiirka duulista hawada wasiirka waxbarashada xageena waxa joogay wasiirada dhigooda intaas oo ka mid yahay wasiirka waxbarashada wasiirka ganacsiga wasiirka amniga gudaha wasiirka duulista hawada iyo wasiir ku-xigeenka kalluumaysiga iyo blue economic intaas way joogeen. kulankan wuxuu ahaa shirkii saddexaad oo labada dal ay yeeshaan heshiisyada JCC-dana mar hore ayaa lagu soo ballamay laakiin kan wuxuu ahaa kii mid daba jooga heshiis ay gaareen labada madaxweyne sanadkii hore halkan ay ku gaareen oo arrimo ku saabsanaa arrimaha immigration iyo isku socodka dalka heshiis laga gaaray. marka qodobada ugu muhiimsan oo maanta halkan lagu qaadaa dhigay waxay ahaayeen saddex qaybood ayay xoogga saarayeen. mid ka mid ah waa arrimaha dibadda iyo arrimaha amniga oo qodobaha kan ku xigana wuxuu ahaa dhaqaalaha iyo ganacsiga kan ugu dambeeyana wuxuu ahaa arrimaha bulshada. marka dhammaan waxa heshiiska hadda lama wada tixi karo laakiin qodobada ugu muhiimsan wuxuu ahaa oo in ganacsigii la isku furo oo malayga Soomaaliya iyo kalluunka badda Soomaaliya oo Ilaahay nagu marnaysay khayraadkaas in albaab cusub loo furo. waxa ka mid ahaa waxbarashada oo runtii iyadana macallimiinta tababarkooda iyo isdhaafsiga khibradda iyo waayo-aragnimada iyo maamulka xagga tacliinta oo iyadana heshiis fiican laga gaaray. waxaa kaloo laga gaaray arrimaha siyaasadda labada dal diplomatically aad bay isugu soo dhow yihiin in regionka gobolka iyo dibaddaba arrimaha issueska jiraba in la iska kaashado la isaga soo dhawaado dhammaan. marka arrimahaas kale waxbarashada la gaaray blue economiga sidaan u tilmaanaa waxa laga tilmaamay ciidanka iyo amniga iyo xuduudaha ayaa wax laga tilmaamay oo iyaduna uu heshiiskani taabanayay oo ilaa dhamaanaysa iyo isku socodka dadka oo ilaa qaybo ka mid ah wada hadalkoodii uu socdo ilaa October la rabo in la soo gabagabeeyo iyo July. marka dhammaan runtii labada dawladood albaab cusub iyo wada shaqayn cusub ayaa u furmay. JCC-dan dawladaha qaarkood Kenya waxay la maraysaa kii 33aad bay la maraysaa laakiin anaga hadda waxaan joognaa 3 baan joognaa. marka runtii iskaashigaas weyn ayaa albaabkaas furmay waxayna tani muujinaysaa xiriirka leadershipka dalku uu abuuray oo labada dal Kenya waa la xasuustaa dhowr sano kadib meeshii la kala joogay laakiin hadda in la isku furmay oo dad Soomaaliyeed oo tiro badan halkan ay ku leeyihiin ganacsiga iyo xoolahoodii oo dhan ay joogaan. Kenya albaabka ugu dhow Soomaaliya ay ahayd sanadihii la soo dhaafay 30 sano la soo dhaafayba. marka in dawladda Soomaaliya ay ka shaqeyso in xiriirkaas la rasmiyeeyo oo loo yeelo documenti si dadkeena xoolaha halkan ku haysta iyo kuwa imaanaya ee raba inay maal gashadaan intaba si ay u helaan wax ilaaliya iyo heshiisyo ilaaliya ayuu heshiiskani qotomay. runtii marka guud ahaan guul bay noo wada ahayd labada dalba dhammaanna waxay ku qotomaan team adag oo wasaaradaha ka kala socda iyo xafiiska prime ministerka ayaa saddexdii maalmood oo la soo dhaafay wada hadalkan meeshan ku hayay. marka dalka Soomaaliya runtii si fiican bay u mateleen wasiiradii yimid Soomaaliya si fiican bay u mateleen. waxaana rajaynaynaa heshiisyadani ilaa iyo waxay socon shirka ku xiga ayaan ilaaway oo wuxuu dhici doonaa maaragtay Muqdisho ka dhici doonaa sanada soo socotaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo. marka saas uu soconaya shir lagu review garaynayo oo wixii ka qabsoomay iyo wixii ka hirgalay ayaa sanada soo socota May magaalada Muqdisho ka dhici doona. shirka JCC-da xigtana ayaduna waxay dhici doontaa 2026. marka dhammaan qodobadaas runtii waxay ahaayeen qodobo dadka Soomaaliyeed oo runtii dalkani uu yahay dalkii labaad qodobo maslaxadooda iyo labada dal maslaxadiisa
ka turjumayay ahaayeen guul bayna runtii nagu soo dhammaaday maanta waad arkayseen shirkii jaraa'id halkan lagu qabtay heshiiskoo faahfaahsanna dadka Soomaaliyeed waa wasaaradihii khuseeyay ayaa la wadaagi doona